بسم الله الرحمن الرحيم محمد دعار قولد waxuu kamid yahay odayaasha ugu waaweyn magaalada Bandarbayla ee muddo badan ku noolaa maxamed adeer waxaad nooga warantaa magaalada Bandarbayla iyo taariikhda ay leedahay taariikhda Bandarbayla hadda doonayso ilaa 1800 meelahaas la asaasay ayaama ka hor waliba ka hor 800 aakhirkeedii baa la asaasay marka dabadeedna sidii bay ahayd markii uu yimi ninkii daalinka ah shayidka ahaa waxaa laga dhigay 4 meelood baa laga dhigay magaalada meel baa laga dhigay meelaad soo martay noqoto leeyahay meel baa laga dhigay dhuudo meel baa laga dhigay meel leeyahay dhuur meel baa laga dhigay magaaladu meel bay ahayd intaas laga daafici jiray ninkii afarta goobood yaa ka dhigay afarta goobood nimankii halka joogay iyo boqorkii oo la jira waa ka dhigay boqorkii iyo odayaasha halkan joogay Musulba ba afarta qaybood ka dhigay marka 1800 baa magaalada Bayla la soo degay intee maamul baa marka soo maray magaaladan hadda aynu joognay Bayla intee maamul baa isaga dambeysay waxay isaga dambeysay boqortooyadii fajiisto ingiriiska dhulka qabsaday ninkii la oran jiray fidujaariyadii qoladii dawladnimadana gaarsiisay oo Talyaaniga ahayd kontonkii marka waxaas isaga dambeeyay meeshaan adigu tee soo gaadhay marka anigu tii u dambeysaan soo gaaray kontonkii xornimadana gaarsiisay magaaladu intee la ekeyd marka magaaladan Bandarbayla waagaas rafoorkan hadii saaran ma jirin inta hoose ma soo madhaad yaa inta hoose tayahay oo kaliya rafoorka oogada tan ma jirin ishuna biyaha laga cabanay waxay ahayd isha Bayla yahay kaliya yahay waa garta ceelka sareeto hadda isagana laga cabaa ma jirin dawladihii kala dambeeyay Soomaaliya markaan kaaga soo qaado intee madaxweynaha meeshaan yimid madaxweyne waxaa yimid ninkii la oran jiray Cabdirashiid Cali Sharmaar ka yimid halkaan ninkii la oran jiray markuu isaguna noqday madaxda Cabdirasaaq Xajeen ay isaguna marka dawladda weyn ninkii ka yimid wuxuu ahaa ninkii la oran jiray muxuu ahaayay Cabdirashiid Cali Sharmaar maxamed Siyaad waa yimid baleeyada maxamed Siyaadna waa yimid marka maxamed Siyaad iyo Cabdirashiid iyo gabalaysi maahe Cabdirasaaqna waa yimid haddee magac xusuusna anigu ninka loo yimid xilliga Talyaaniga iga waran dadku sidee u arkayeen Talyaaniga imaatinkiisa halkaan goormaas ku qiyaasay markii ugu horeysay dawladda Talyaaniga ay yimaadaan halkaan dawladda Talyaaniga 25 bay ahayd 25 markay maraakiibtu ku imaanayaan markaas ayna qabsadeen waa gartay maxay sameeyeen markii qabsigaas iyada iyo warbixin bal fiican naga sii markay magaalada soo galeen sida dadku u arkayay nooca ah waxay horiyo horaan baargaalo boqorkii joogay horiyo horaan qabsadeen meesha ku xigtana Bayla ahayd marka sidaas la igu sheegay anigu ma ilaa waaga ma joogin marka bariyo dhamay qabsadeen dadku soo arkayeen marka qabsiga waa dad laga itaal roonaaday dawladaha iyo dawladnimadii laga qaaday maxay u qabteen dalka marka maxay ka qabteen intii ay joogeen Talyaaniga wuxuu ka qaban lahaa adigu shaqaale iyo waxaan macna lahayn iyo ma wuxuu ka qabtay ma jiro wax uu dhisay haba yaraatee ma jirto wax uu dhisay maanta lagu xusuusan karo oo Bayla ku yaal wuxuu dhisay oo Bayla ku yaal oo Talyaaniga lagu xusuusto daar hadda dusano halkooya Talyaaniga waa dhisay waa gartay meeshii uu deganaan jiray weeye kama saariyihii gumartoore may marka meeshaasu wax kale ma dhisin station hataa ma dhisin gurya dad leeyahay baa stationku ahaan jiray oo xaafadda shisheeta iyada weyneed waaga hore
marka gurigaasuu dhistay talyaanigu. maxamed dacar nin weyn oo odayaa tahay muddo badan da'daada maasha allah soo jiray maamuladaas soo kala gaaray ka waran marka tii kontonkii ilaa iyo lixdankii. kontonkii ilaa lixdankii waa goortii ay nahayeen muxuu ahaayey fidujaari haa si fiican marka waa iska qaboobacayeen ilaa isticmaar ma ahayn dowladna loo dhiibay bay ahayd. aynu ka soo tagno marka lixdankii aynu nimaadno xilligii xornimada la qaadanayay iyada maxaad warbixin oo naga siin kartaa degmada kuraanshaheeda iyo bal wixii la qabtay xilligaas wax waa la qabtay. deked baa la dhisay, guri dowladdu leedahay oo hadda burburay meesha hal dhagax uusan ka oolayn baa la dhisay. marka dowladda haddaynu noqonnay tacab baa la galay, station baa la dhisay, kamasaariyaha gurigiisa kii talyaaniga loo daayey laakiin guri uu seexda waa la dhisay. marka sidaasay ahayd. hadalkaagii hore waxaa ku jiray daalimkii sayid maxamed cabdulla xasan, maxaa ka wada arrintaa iyadaa? waxaa ka muuqata meeshu waxay ahayd meesha laga daafaca ninkaas. laga daafaco ninkaa laga daafacay. waa garta dhuudo ka waran. yaa dhuudo soo maaha meesha asliga ahayd. dhuudo iyo waxaan ku yidhi dhuur iyo qotun baa daaran laga dhisay oo ciidan fadhiyi jiray. marka boqortooyadii iyo nimanakan baa haddii ninka yimi baa oday annaga ahaa u tegey wuxuu yidhi ilaa wa ilaa waxaan doonayaa ciidan baan rabaa. sayidkuna weli ma bilaabin halkaa. aad baad u mahadsan tahay maxamed dacar guuleed, aad iyo aad baad kaaga mahadcelinayaa waqti oo aad nagu yara awgii. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.